Recording in progress. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inaad fiican tihiin dhammaantiin baan rajaynayaa waad wanaagsan tihiin. Dabcan waxaan guda gelaynaa xiisadeena casriyaha oo fursad fiican aan ka raadsan doono dahabka. Dabcan maanta dhoweyd kanalkan awoodda leh oo inaga saaray suuqa waxaa arkaysaa in kanalkan mid dhowr xaboo la mid ay samaysmeen. Marka cadaadis baa jiray dahabka lama hubi karin inuu gaarayo 18 ka sareysa inuu gaari karayo. Marka fursad fiican oo long trade oo long pips lagu qaato ma ay ku jirin xaqiiqatan. Waa sababta marka aan uga tagnay. Marka fursad baan rabnaa inaan maanta ka eegano fursadaas oo ah mid aan rabno inaan ku qaadano. Dabcan saaki waa rabnay inaan qaadano laakiin newsyo ayaa soo baxaya. newsyadan markaa soo baxaya saameynta ay yeelan karaan iyo dahabka meeshu hadda xaalayan joogo aad bay isku qusaysaa ama aad bay u saameynaysaa. Marka hadda tusaale oo kale kanoo kale newskan oo kale ee redka ah wuxuu inoo sheegayaa inuu yahay ama la fili karayo inuu ku soo baxo negative. Marka negative iyo dahabkii hoos u socda waxaan hadba iskeenayn bay noqotay oo dahabkan hadda down ilaa iyo 1757 waa gaaray. Marka possible miya inuu mar labaad halkan ka dhaqaaqo oo negative-kan hadday ay saameyso ay sax noqoto halkan uu ka dhaqaaqo kadibna uu ilaa iyo 1800 u tago. waa possible baan ugu aaminsanahay. sidoo kale waxaa macquula inuu newskaasi positive noqdo oo uu jabiyo gidaaradan oo dhan kan cuno kadibna uu soo daato. Marka dabcan taymyada waaweynna waan tegi doonaa si aan more clear ugu sii aragno. Okay. walaal baa message ii reebay wuxuu yiri ustaad tradekan ilaayo maalinkii waa hayaa ma sii deynin faa'iido fiican runta u socota waa wuu soo diray. marka good luck baan ku dhahayaa. kule riskigaagana aad buu fiican yahay. riskigaagana 100% uu fadhiyaa. waxay suuqan waa risk management. haddii riskigaagu uu xun yahay oo waxaad adiga aad isticmaalayn ay xun tahay way adag tahay ma waxaa la oran karaa wuu adag yahay baa la oran karaa inaad successful aad ku noqoto. waan idiin furay codka sidoo kale chatka idiin furay ka xirnaa. marka maanta liga September November horta meeshii ugu sareysay waa gaadhay. way sii socon kartaa. waxaa dhici karta in isbuucan newsyada ay bartan geeyaan. way dhici kartaa ilaa 1800 inuu gaaro. laakiin waxaan keliya aan isku hubnaa waxaa weeye selka ku jira waa iska short time ama waqti iska yar weeyaan. laakiin suuqan fursadiisa ugu badan waxay imaanaysaa bilaha soo socda waana buy. fursad fiican oo buy-ah oo qurux badan oo muddaba wax loo yaqaano la wada sugayay bishan baa caddaynaysa. waa hadday sidaa ku dhammaato sababto waxaa weeye weli bishii ma dhammaan. waxaa macquul laba inay intaan week ay ku dhammaato kadibna baadigana uu hoos ku dhammaado. marka waxaan anigu xaqiijin karnaa waxaa weeye markay November dhammaato baan go-aanka hadda ama sani hadda idin sheegayo ama waxa idila wadaagayo run ahaanshahooda ama xaqiiqdooda ay noqon kartaa mid laga guulgaarayo. marka weekligan horta gidaarkan inuusan gaarin oo ku beegan 1800 ku beegan
إنه سجارين وهكذا كسر نقطة معقول مية وح معقولة إنه هكذا أوتوا وحنا تاس possible كده يكريسا أسبوع عن إنه هكذا باكن تقول ذهبك كدبنا وسلكي هذا كسر بلو وصارت أنا وقع بسنة كم تايم مانتي يشرع بقى هاي المال أذك بتشوجا إنه هكذا تقول كدبنا سلكي سوق روح بدن راح كيما هذا كدبنا هالكن أي تايم مش وبدن أنا hadda ka horna calaamadiyey ama xiisadii hore anidii calaamadiyey meeshani ay tahay meesha ugu weyn ee wax loo yaqaano bayga ugu weyn laga qaadan karayo waxaa la yidhahdaa security spy ama bayda ugu weyn meesha laga qaadan karayo hagaag marka newsi maadaama uu jiro suuqiina uu meel adag uu joogo haddana uu wado retracement ama soo noqoshadanna waxay noqon kartaa mid ay ku timaado halkan ay ku timaado way noqon kartaa oo ilaa 2725 ay ku timaado inay halkan oo laftigeeda gidaar kala ahna ina daily time frame kala joogo ay ku noqoto halkan ka noqoto oo ay gidaarkan tagtana waa suuragal marka newska meeshu marka inoo kaxeeyo baan u qaadanayna halkan bayda selka ugu weyn ku jira intan bay way noqon kartaa haddii gidaarkan la soo jebiyo la cuno isla newskana ilaa intaas sel bay noqonaysaa I hope inay intaas clear tahay inay I hope inay intaa very clear tahay hadaa fahanteen wan wali soo qora hadaad fahanteen wan isoo qora okay hagaag si fiican bay la socotaan kanna waa inoo haynayaa hadduu ilaahaynu okay November 17 waxaan filaynaa sidoo kale inaan eegno horta bal maanta dhaweyd sawiradii aan qaadanay sawirkii maanta dhaweyd qaadanay aan eegaynaa November okay November 15 mar walba meesha waxaan aaminsanahay inay tahay meesha bayda ugu weyn laga qaraaca jiro long time bayga meesha laga dirayo aniga maanta horena idin sheegay dabcan intaa ku jirnana waan isla eegi doonaa November 17 gool kana muxuu ahaa sawiranay mid time frame yarna waan sawiranay aan eegno kan waa hore mid kale minaan sawiran miya sawir kale minaan qaadanin okay hagaag kanna waa isla kii maalinta dhaweyd good marka waxaa suuragala in dib mataqaanaa loogu diro baygii sababto waxaa baydan still momentumkan ama awoodan still weli way joogtaa 4 hourka markaan tagno waxaa arkaynaa halkan inay tahay meeshan kanalkan laga soo celiyey rejectionka uu ka dhacay halkan 2 hourka markaan tagno still rejectionka waa socdaa waxaa suuragala marka newska ama newska inuu saameyn ku yeesho oo markaa baydan ay noqoto bayda ilaa iyo state ku tagi doonta who knows arki doonaa who knows already waa socotaa marka waan arkaynaa insha allah newskan sugaynaa haddii aan ku qanacno waan qaadanaynaa ilaa iyo tv-geenu halkaasa
haddii uu hoos noo jibiyana waan qaadanaynaa qoritaas ayaan sugaynaa newska ayaan ka war sugaynaa markaa laakiin waa very clear baan filayaa structurekan uu very clear yahay baan filayaa oo aad si fiican u wada fahanteen newskana wax yar baa inooga dhiman okay 1 minute hal daqiiqa dhiman 1 more minute 1 more minute marka waa arki doonaa sida uu markaa inoo noqdo ama ku dhammaado kadibna decisionkeena based on wuxuu noqonayaa based on this news hopefully inuu structureka uu saameeyo inuu structurekana saameeyo okay hagaag waxaan filayaa wax saameyna haba yaraatee ilaa hadda ma aragno laakiin newska inta badan saameyntiisa gadaal ka timaadaa oh that's negative okay saameyntiisa gadaal bay ka timaadaa let's see ilaa hadda waxa u marayno filaya newskan inuu ahayn mid effective ah inuu mid effective ahayn ba macquula okay still numberskan waa negative still numberskan waa negative طبعا بايدن
unemployment asaga saameyntiisu waa noocee wallahi walaal inta badan xataa sometimes NFP baan marmarka xataa saameyn noqon ama saameyn ama sida la filayay NFP xataa saas sometimes ma noqoto marka waxay u badan tahay amaan u badinayaa meeshanna at least meel laga baygareyn kara ma uu joogo dahabku meel laga saagareyn kara ma uu joogo marka newskanna waxaa rabay inuu dhinac unu kaxeeyo at least hadduu halkaa tegi lahaa oo kale fursadaan negativeka baydaa waan qaadan lahayn laakiin hadda gaabkan weyn meeshanna meel bay laga qaata ma jirto selna inuu halkan ku noqdo maybe inuu halkan ku noqdo inuu meelahaas kale ku noqdo meelahaas ka soo qaadan haa laakiin hadda medalka meeshan oo kale waa very very strange weeyaan marka let's wait still chancekiina ma imaanin hadduu imaan newskan saax saameyna uusan yeelanna in waxaan rabnaa keliya aan eegano inuu gidaarkan jabiyo markuu gidaarkan jabiyo unbaa wax loo yaqaano lugtaar dambe ee dheer sii qaadan doonaa hadduu ilaahay idmo inta ka horeysa waan iska yara sugaynaa aayar baan iska fadhinaynaa iyo iska sugaynaa okay marka insha allah wixii fursad ah qolka activeka ah waa inoo soo dhigi doonaa waa haddii aan helo ama dahabku inuu halkan yimaado si aan u sargarayno inuu areadan dib ugu soo noqdo haddii aan baygaranayno inuu areadan dib ugu soo noqdo hadba kuwa ku hormaro ma qaadanayna newskanna sida la moodaya maaha oo hadduu saa inactive u yahay oo kala saakay trade baan iska qaadan lahayn xaqiiqdii hal trade baan iska qaadan lahayn iska dhufsan lahayn marka insha allah saasaan isku ognaa khayr badan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu